الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بaa mahadle marka hore runtii maanta isku keenkan inaynu halkan xafladan aanu gaadiidka kula wareegayno inaan isku nimaadno iyadoo aynu ku jirno bishii barakaysan ee Ramadaan 10kii u dambeeyay wala maalmihii ugu sii dambeysay oo maanta ay 7 noo tahay ilaahay khayrka ka hanasay sidaad ka wada dheregsantihiin labadii sano ugu dambeeyay 2019 iyo 2020 Soomaaliland waxa ay la tacaalaysaa wasaaradda horumarinta beeruhu Ayaa oo runtii aafa qaran waana cayayaanka ugu daran adduunyada ay u kala goosho qaarado badan oo adduunka ka mid ah xarufiyana runtii calafka xoolaha iyo beerahaba kaasi oo labadii sano ugu dambeeyay runtii dhibaatooyin badan ku ay dhammaan dalka Soomaaliland oo dhan iyadoo runtii ay wasaaraddu mar walba iyo hooba la garab joogto shacabkeega Soomaaliland ee ku hawlan dhinaca wax soo saarka beeraha sidaad ogtiin hay'adda FAO waa hay'adda kaliya ee sida dhow noola shaqaysta muddadii ay wasaaradda beeruhu jirtayba iyo intii qarankan uu la soo noqday goon isku taaggiisiiba waana hay'adda mar walba aynu ka helno gacan caawimo aanu runtii kula tacaalno dhibaatooyinka dhinaca beeraha iyo dhinaca xoolahaba haddaba annagoo taa ka duulayna ayaa xafladan maanta ee halkan aanu iskugu nimidnay waxaan hay'adda FAO runtii kala wareegaynaa oo halkan ku arkaysaan 6 baabuur oo nuucii ugu dambeeyay oo maanta hortiina taagan gaadiidkaas oo loogu talagalay inay ka hawlgali doonaan dhammaan gobollada dalka Soomaaliland meel kasta oo lagu sheego Ayaa hay'adda FAO intan uu kuba koobnay runtii macaawinadeedu baabuurtan waxa kale hay'adda FAO naga caawisaa ha noqoto dhinaca tababarka shaqaalaha ha noqoto hawlo badan ama gaadiid hore inoo keenta ha noqoto qalabka buufinta oo maanta halkan waxa saaran baabuurta 6 buufime oo kuwii baabuurta saarana waxa kale inoo keentay 4 kuwa dhaxa waxaynu kale inoo keentay 6 buufimo oo kuwa dadku dhabarka ku qaataan shaqaalaha wasaaraddu waxa kale wasaaradda beeraha ee wasaaradda FAO kala wareegnay 1900 oo kilogram oo dawada lagu buufinayo Ayaa oo waliba dawo kaliya oo waxay dilaysaa Ayaa oo kaliya loogu talagalay laakiin aanan keenayn deegaanka iyo dad iyo dunya midaan dhibaato u geysan laakiin loogu talagalay kaliya inay la dagaalanto Ayaa oo kaliya inta marka runtii laga yimaado waxa intaas oo qalaba iyo hawlaha hay'adda FAO nala wado oo runtii hawlo aad u ballaaran waxaan halkan runtii mahadnaq ballaaran uga jeedinayaa madaxa hay'adda FAO ee Somaliland Maxamed Jaamac oo garabkayga midig taagan waxa kale oo runtii u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha madaxda kala duwan ee hay'adda FAO ama joogaan Nairobi ama meelo kale runtii sida wanaagsan ee ay mar walba ugu soo jawaabaan dalabka ama qoraalada emailada aynu isdhaafsano oo runtii aan aad ugu faraxsanahay saacado u kooban inay degdeg ugu soo jawaabaan waxa iyaduna taa inoo daba socota oo wiiga soo socda noo imanaya diyaaradihii dusha ka buufin lahaa Ayaa oo stage-ka markuu gaadho aan ugu talagalnay oo iyaguna hadda noo soo dhacay inay si degdeg wiigan u soo cagadhiganayaan madaarka Cigaal International Airport oo runtii si toos ah Nairobi uga soo duulayaan taasina waa guulaha ay wasaaraddu gaadhay waana guulaha qaranka Soomaaliland gaadhay iyadoo diyaaradaasi ayna meel dhexe ayna soo mareen laakiin si toos ah Nairobi uga soo duulayaan
Somaliland si toos ah u imanayaan baabuurtan oo runtii sababtooda hay'adda FAO leedahay waxay iyaduna gacan ka geysatay oo maalgelinta iska lahayd USAID baa maalgelinta lahayd oo iyaduna aan meesha ka maqnayn runtii farxad bay noo tahay annaga runtii wasaar beer ahaan aniga agaasimaha guud iyo shaqaalaha wasaaradda hareerihiina tuganba inay maanta wasaaradda beeruhu noqoto wasaarad la wareegaysa gaadiidka tirada intaa leeg iyo baabuurta noocaas oo ah baabuurtii runtii aan ayaxa kula dagaalami lahayn taasi waa horumarta wasaaraddu gaadhay waxaan aad ugu mahadcelinayaa runtii agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha agaasima waaxeedada shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeraha oo iyaguna runtii cid kastaba wasaaradda xilkii loo egmaday ay sida dastuurku qeexay ay gudatay waxaa maanta nala joogay isaguna agaasima waaxeedka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo isaguna xafladda maanta nagula sugan maadaama aanu la wareegayno gaadiid isaguna waxay noqotay inuu maanta runtii halkan nala soo joogsado goobjoog ka noqdo inaanu gaadiidkan la wareegayno waxaan ku runtii innaga mahadnaq ballaaran u jeedinayaa saxaafadda oo iyaduna mar kasta hawsha wasaaradda iyagana nagala qayb qaata aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba waxaanu ininka la wareegi doonaa runtii waanu kala saxeexan doonaa madaxa hay'adda FAO ee Somaliland Maxamed Jaamac gaadiidkan oo runtii iyaga laftooda ay wata dirowalintii loogu talagalay oo iyagana halkan ka xaadirin doono gaari kastaba wuxuu leeyahay lambar gaari kastaba dirowal gaara ku qoran baabuurtani waa baabuur u adeegi doonta shacabka Somaliland ee ku hawlan dhinaca wax soo saarka iyo beeraha noqon maayaan baabuur suuqa dhexdeeda lagu maro ama wasaaradda ka baxa kaliya waxay u bixi doonaan shaqada oo kaliya un bay u baxayaan dirowalinta ku qoranna waxay noqon doonaan dirowalin heegan u ah mar walba saacad kastoo loo baahdo dirowalka koowaad Muxuudiin Yuusuf Xasan Ileeye wuxuu kaxaynayaa gaariga lambarkiisu yahay 1589 Liibaan Xamed Faarax wuxuu kaxaynayaa gaariga lambarkiisu yahay 1559 Cabdiqaadir Xaaji Xasan wuxuu kaxaynayaa gaariga lambarkiisu yahay 1588 Cabdi Maxamuud Caydiid wuxuu ku qoran yahay gaariga lambarkiisu yahay 1586 Daahir Cilmi Faarax Wacays wuxuu ku qoran yahay gaariga lambarkiisu yahay 1587 Maxamed Cabdi Xariir wuxuu ku qoran yahay gaariga lambarkiisu yahay 1560 dirowalinta baabuurta ku qorani dirawal kasta wuxuu mas'uul ka yahay baabuurka qalabka imika saaran ama gudaha hay yaalaan qalabku isbeerku ama ku jiraan dibadda hay yaalaan gaari kastaba dirawalka xilka loo tiriyay isaga ayaa mas'uul ka noqday gaariga wixii soo gaaray dirawalka laga xisaabtamaya dhibaato gaariga soo gaara aad iyo aad baad mahadsan